laakiin 3 sano iyo 4 ka dambeeyay wali wadankeena xisaab xiridii loo baahna oo budget lagama sameyn marka waxa soo dhan nidaamkii dawliga ah iyo asaaskiisii way naga maqan tahay garsoorkii way naga maqan arrimihii ku saabsanaa codeyntii hal qof hal cod arrimihii dhaqaalaha wax laga qabanayay wadankeenu maanta maalin uu ka liitaa oo khatar ku jira uga dhow yahay ma jirto wadankani badbaado dhab uu u baahan yahay dhaqaaluhu waa qayb ka mid ah oo ma odhan kartid dhaqaale saameyn uma yeelan karo doorashada dadkoo dhan waa ka dharagsan yihiin laakiin dhaqaaluhu markay isugu soo biishooto ma aha waxa dadka xildhibaanadu kuwii hore oo doorashooyinkii hore 12kii 16kii dadku waxay eegaan marka dambe yay u arkaan wadankan inuu u qalmo u hogaamiyo madaxweynayaal hore aad xasan oo aad uga dharagsantahay nin siyaasadda la socdaa tahay oo lacag badan bixiyey baa jira oo lalahaa dhaqaalay ku soo noqonaya haddana way ku guuldaraysteen marka qayb wuu yahay kuma odhanayo ma ogtahay dhaqaaluhu ma aha saameyn laakiin waxaan aaminsanahay marka dambe dadku waxay eegayaan qofkan 4 sano ma ku aamini karaa ayaya jiilaalkayga caruurteedii dadkii naga dambeeyey ma ku aamini karaa marka ugu dambeysa taasaan u maleynaya xildhibaanadu inay ku codeynayaan ay leeyihiin qofkani barnaamijku soo hordhigay wuxuu ahaa taariikhdiisa markaan qiimeeyey dadkii murashaxiintii oo dhan qofkeebaan u arkaa inuu wadankan gaadhsiin karo dhibaatooyinkan kasoo hadlaan aan u baahan inaan ku celino yaa ka saari kara marka anigu waxaan aaminsanahay inay marka dambe go-aanku noqon doonaan yaa hog horta dee marka ugu dambeysa subxaana wa tacaala ilaah baa og inaka dadaal baa ina la faray iyo inaad sharaxdid barnaamijkaaga iyo waxaad aaminsantahay oo baarlamaanka khudbadda dadku ka jeedin doonaan waa inay u sheegaan runtii wadankan sidee bay u badbaadinayaan dhibaatada ku jirta macluumaad badan oo arrimaha ku saabsan miidiyaha baan meelo badan u sheegnay ummadda soomaaliya waxaan rajaynaynaa xogtaas iyo macluumaadkaas inay gaadhay xooggeedu xildhibaanada oo markaa dambana ay qiimeyn samayn doonaan oo ku qiimeyn doonaan ay leeyihiin qofkan muxuu qabtay muxuu maaragtay kusoo kordhin karaa wadanka anigu 2 qodob baan ka odhanayaa in rajadeydu waxay yeelan karto saad uga warqabtid xildhibaanadu marka ugu dambeysa waxay eegayaan qofkan le inaan qabtaan rabaa xilkan horta khibrad ma leeyahay dunida ma ka soo shaqeeyey waxyaalihii hore u qabtay wax la taaban karo ma la arki karo oo la odhan karo waxbay iga ifin kartaa in qofkaasi karti leeyahay anigu 3 wax baan kuu sheegayaa anigu aaminsanahay inay talo fiican ama si wanaagsan sawir ka siin karto ama u bidhaamin karto inaanahay qof u qalma oo hawshan ka soo bixi kara ta ugu horeysa waxa weeyaan anigii kuu sheego waxaan ku dhahay wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badana anigu xilkaygii waxaan uga tegey anigoo ummadda Soomaaliyeed xoolaheedii iyo dhaqaalahoodii iyo baddoodii iyo kheyraadkii ku jiray dartood baan xilkaygii uga tegey waxaan u maleynayaa inay taasi tusi karto in aanan anigu jagado muhiim yahan ee ummadda Soomaaliyeed danteeda iyo masiirkeeda inay muhiim tahay su'aal aan dhameystay xasan ikaadide oo ku dhameeya 3 baan ku yidhi taasi waa midda labaad saad uga warqabtid anigu guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada waa 20 iyo maaragtay 12 wasaaradood baan shir guddoonkooda ahaa xoghayntooda ahaa marka anigu waxaa ninkii deyn cafiska aniga wasiir beyle hay-adda sanduuqa lacagta ee IMF-ta door weyn baan ka ciyaaray waana xogaad ogtahay dadkoo dhanna waa ogyahay waxaan ku faanayana maaha arrintaana door weyn baan ka ciyaaray deyn cafiska ku saabsan arrinta saddexaadna waa arrintan kuu sheego aan ku yidhi waxaan ahay wasiirka kaliya ee batroolka weli ma sameyn oo kalluumaysiga oo 5 maamul goboleed madaxweynayaashoodii u keenay qanciyey iyo gobolka banaadir Allah naxariistay yariiso markuu joogay marka anigu intaan u soo bandhigay qorshihii aan doonanay anigu waxaan kasban karaa inaan ka dhaadhicin karo madaxdii gobolada in wadankeena u baahanay inaan isu nimaadno oo aan heshiiskan galno taasina waxay tusaale u noqon kartaa haddii ilaahay idmo aan fursaddan ku guuleysto inaan dadka Soomaaliyeed iyo gobolladeena isu maanta maalinay midnimo uga baahannahay uga baahi badannahay ma jirto waxa aan rabaa anigu aan aaminsanahay inaan dadka isu keeni karo oo tafraaruqeena soo yareyn karo 3 arrimood waxaan aaminsanahay inay noqon karto 3 wax oo dadku u arki karaan nin mas'uul ah oo xilka inaan qaban karo waxaan rajeynaynaa inay maanta tahay tii ugu dambeysay doorasho dambe oo ummadda Soomaaliyeed ku niyad jabaan waxaan anigu taageerayaa aan aaminsanahay haddii ilaahay fursaddaana siiyo iyo ciddii kale wadaba wadankani ma xamili karo in mar dambe
ay wixiina soo maray oo maaragta aad garanaysaan aan rabay inaan ka hadlo inaan ku noqono wadankani wuu istaahilaa wax ka badan buu istaahilaa waa wadan ilaahay siiyey khayraad waa wadan ilaahay siiyey dadka ugu ganacsatada dunida ugu maaragtay firfircoon ilaa South Africa ilaa Central Africa meel kasta jooga dadka Soomaaliyeed waa dad haddii dowlad wanaagsan oo sharci leh kala dambeyn leh maxkamaduhu shaqeeyaan amniga la sugo waa wadan noqon kara wadamada Afrikada bari iyo Afrika oo dhan dhaqaalaha ugu waaweyn buu noqon kara waa ku kalsoonahay waana arrin suuroobi karta waayahay ayaa ku warab shacuur dhulkii cusub badleeqaa dhulka helaan cagaar ninkii celshubi yaqaan ayaa ku warab shacuur dhulkii cusub badleeqaa dhulka helaan cagaar obuuru caadi lagu yaqaan cilmigiyo dhaqaalaha إلهي كعب سدايا عينانك كوامينتا عينانك كوامينتا أقول عادي لو يقان علميو نقلها إلهي كعب سدايا عينانك كوامينتا عينانك كوامينتا أولا وحان هيانين عديو علنك جعل صومالي وعدني كرا عدكي سنة قوسن كرا عبد الرحمن عود كاقسي أولا وحان هيانين عديو علنك جعل صومالي يعدني كرا عدكي سنة قوسن كرا عبد الرحمن عود كاقسي سياسدهن عكرن جدي عالكي كلمي وحانق عينين كرا نيكي عارف يقان سياسدهن عكرن جدي عالكي كلمي وحانق عينين كرا نيكي عارف يقان هلي لو عرسادي عبدنا وعاقل وعن درب عرتيو عكيبا سوء كذي عكيبا سوء كذي هلي لو عرسادي عبدنا وعاقل وعن درب عرتيو عكيبا سوء كذي عكيبا سوء كذي أولا وحان هيانين عديو على كجعل صومالي يعدني كرا عدكي سنة قوسن كرا عبد الرحمن عود كاقسي
aan hayaanin cidiyo calanka jecel Soomaaliyu cidni kara cadkiisana goosan kara Cabdiraxmaan codkaaga sii